first taxi driver oo woman ah inaan naagti ugu horeyso taxila aan noqdo waxa ku xigta inaan habeenkii iska roge aan wadi jiray ziizow ah aan abay dhaxan ku wadi jiray oo ciidib oo carbulkeetiga aan keeni jiray adduunka nolol aan ku soo qaadan muqdisho ma jirto barnaamijka xogta qarsoon ee shakhsiga oo dareen ahaan ka duwan barnaamijyadii hore oo madadaalo u badnaa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa tixanaha dheer nolosha qaybna mugdiga ah qaybna iftiinka ah ee alfanaan maryan mursal ciise bootaan waa sidee xilligii ay magaalada muqdisho ka ahayd daroobalka xeega gaari ziizow ah maxaa ay ahayd sababtii looga ceeriyey shaqadii radio muqdisho ma is leedahay fanaanadan xilligii ay fanka ku soo biirin ka hor waxay ahayd booyaas xog xaqiiqo iyo murugo kugu abuuri kartaa ayaan daawada kuu soo gudbin doonaa waxaana ay maryan mursal ciise kugu dhiirigelin doontaa marka aad daawato warbixinteeda in aad nolosha dhinac walba u adkaysato haddaba daawade inta aysan muuqaalkan inoo bilaaban barteena YouTube ee Bandhiga Production subscribe saar sidoo kale furo gambaleelka waxa xaqiiqo ah inaad wax badan ogaan doonto insha Allah waxaan idinla socodsiin doonaa barnaamijkan anigoo daacad ah inayo ruuliya orod kugu raadshay adigo rugta aad ku nooshahay muddo badan ku riiqmo ricirahanka jabaye waa ku daalay raadiskaagi way الفنان مريم مرسل عيسى بوتان markaan isla joogna Kenya kalgacalkii caashiqeeni كلبا فنانad cod macaani iyo dhoola cadeyn joogto ah isku darsatay كذني markaan isku keli ahay كلبا ma ilaawi karo kalaamka dadka leh maqal kalsoonaan karaba kunjeer aniga ku jecel kunjeer kisho aniga ku jecel kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barteena YouTube ee Bandhiga Production waxaan maanta idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan alfanaan maryan mursal ciise bootaan allaha caafiye fanaanada Soomaaliyeed ee xilligan ku xanuunsanaysa magaalada Hargeysa ee Somaliland fanaanad cod macaani iyo dhoola cadeyn joogto ah isku darsatay maryan mursal ciise bootaan maxaad ka taqaanaa fanaanadii barisamaadkii geeska Afrika jeeska ku qabsatay ee la waayay qof la barbardhiga ama la barbardhigo min Ethiopia Soomaaliya Suudaan ilaa adduunka oo dhan la gaaray jazz musicna anaga ugu horeynay marka hadee kooxdaas baarana tiriijadoodii ahaa markii dambeeto waxaan ugu soo biiray Faadimo Qaasin iyo Faadimo Cali Nagruuma gabdhaha Axmed Cali Cigaal waa ugu soo biiray ragga ayuu ku soo biiray marka hadee anaga shidnaan jirnayo magaalada dhalinyarada joogta meel kale lama tagi karin laba tagi jirin in habeen walba waxa la isku imaan jiray night clubyadaas oo ku baashaali jirnaa anagoo heesaskii ku Soomaalida oo jazz loo tumaa duro roll yahay haduu yahay maxaa la yiraahdaa marengo haduu yahay tango haduu yahay cha waa sidee xaaladda maryan mursal ciise bootaan oo dhawaan ku xanuunsanayd magaalada Hargeysa ee Somaliland sideesa xilligan xaaladeeda tahay xagee ku dhalatay alfanaan maryan mursal maxaase lagu xasuustaa mid kamid ah maamooyinka fanka Soomaaliyeed lagu xushmeeyo maryan mursal oo qaarkeen muuqaalkan daawanaya dhalasho ahaan ka hor caan ahayd ayaan si dhab ah idinkugu sheegi karin heesta ay ku soo caan baxday waxaan daawadayaasha ka codsanaynaa qofkii xilligaas joogay ee xaqiiqada noo sheegi kara in qaybta commentiga noogu soo qoro magaceeda oo dhameystiran waa maryan mursal ciise bootaan haddii aan eegno taariikhda dhalashada ee fanaanadan maryan mursal ciise bootaan waxa ay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadku markuu ahaa 1950kii maryan ayaana da'deeda xilligan waxa ay tahay 69 sano jir maryan mursal waxay fanka bilowday iyada oo 14 jir ah waxayna radio muqdisho ku soo biirtay 1965tii imtixaan laga qaadayna waxay noqotay nambarka koowaad oo ay ku soo baxday heestii ugu horeysay oo ay qaado tartankan oo ay uga qayb gashay waxaana lagu magacaabaa
indha caashaq waxayna sidaas uga mid noqotay fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed. Maryan Mursal Ciise waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliya kuwa ugu wanaagsan. heesaha ay qaadana waxay isugu jiraan jacayl, wadani, kuwa ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. waxaana heesaheeda ka mid ah beri hore waxaa jiray buur baa kugu gudbanay allow nabad, hoog gacanta iyo kuwa kale oo ay fanaanadan soo qaaday. Maryan waxay ahayd qof ku wanaagsan meel walba, ha noqotee dhanka heesaha ama dhanka jilitaanka. riwaayadihii Maryan ay ka qayb qaadatay jiliinkooda sida aadka ana loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa Shabeel Naagood, Kaarabidhan iyo kuwa kale oo ay fanaanadan qayb ka ahayd. cantaasaan anigoo 10 jir ah aan soo guri jiray habeenkii 2 taniga ilaa subaxii keeni jiray. 1 shilin aan siisan jiray hodan markii la dhisayay. shilinkaasaan hooyaday aan u dhiibi jiray, aan dhihi jiray hay hooyo, markaasay dhihi jiray 10 shilin markuu gaaro cambur soo iibso. maasha Allah, nolol kasta ayaa xamar ku soo qaatay, xataa booyisnimaan soo maray. maxaa la yiraahdaa markii dambeeto night club inaan ka heeso. night clubkii markaas kadib inaan maxaa la yiraahdaa aan raadi Muqdisho kadib aan tago. kadib waxa dhacday inaan shaqadii layga saaray. Ferris taxi driver oo woman ah inaan naagti ugu horeyso taksiila aan noqdo. waxa ku xigtay inaan habeenkii iska roge aan wadi jiray Zizo ah, aan abay dhaxan ku wadi jiray oo ciidib oo carbulkeetiga aan keeni jiray. adduunka nolol aan ku soo qaadan Muqdisho ma jirto. wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya 1991 waxay ku noolayd qurbaha, gaar ahaan dalalka kala ah Denmark, UK iyo sidoo kale wadamo kale. welina waxay degan tahay Ingiriiska, iyadoo oo ku gada jirta Maryan in ay weli hormariso sida ay Soomaali u midoobi lahayd. Maryan Mursal Ciise Bootaan waxaan alla uga baryaynaa in ay caafimaad taam ah hesho weliba degdeg ah. waxay xilligan ku xanuunsan tahay magaalada Hargeysa ee Somaliland. haddaba daawade, haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro, fadlan u duceey mid ka mid ah halyadii qarannimada Soomaaliya soo maray. waa mid ka mid ah fanaaniinta Soomaalida ee aniga iyo dad badan oo ila mid ah ay niyadda ku degsadaan, iyaga oo niyadda ku dhista in fankii Soomaaliyeed weli uu taagan yahay. allaha caafiye. maamo Maryan Mursal Ciise Bootaan waxay xilligan ku xanuunsanaysaa magaalada Hargeysa ee Somaliland, iyadoo oo xaaladeeda caafimaad imika ay tahay mid soo hagaagaysa. waxaana fanaanadan xilliyo dheer ay fanka ku jirtay. Maryan Mursal waxay ka mid tahay fanaaniin fanka Soomaaliyeed magac iyo miisaan u yeelay, waxaana dunida ay tustay miisaanka macnaha ay Soomaali leedahay. bal wax yar daawo muuqaalkan sida ay Maryan Mursal u doonayso in dunida oo dhan ay tusto awoodda iyo midnimada qarannimada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. xilligan waa 2017 waxaana ay doonaysay in ay bandhig ku qabato dalka Mareykanka, kaas oo ay ka qayb galayeen Soomaali oo dhan. marka inta ridmada iyo muusikada samaysa waxa waaye qolo walba oo qolada kale u tagta hore bay kala dheelaysaa oo kala ciyaaraysa. waxa la isla qabsanayaa ma aragtay, waa caadi. marka waana jecelahay in ma aragtay la isdhex galo oo dadkan la tuso inaan dad jiri jiraynahay oo wax walba yaqiinay oo iyaga xataa uga horreyn jiray inaan la tuso waa loo baahan yahay. indha caashaq buu igu eegayo anna waan arko imbiriirsado oo gada sariyo uurkiyo wadnahaad ku abuuranto. waxaa sameeyey abwaan xasan. Maryanna waxay tiri markaan yaraa waxaan ahaa qof ku xidhan abwaanada iyo fanaaniinta. Maryan Mursal Ciise Bootaan waxay 7 sano u shaqaynaysay kana shaqaynaysay in ay meel sare gaarsiiso magaca iyo miisaanka Soomaalida. waxaana fanaanadan ay xilliyo dheer iyadoo ka shaqaynaysay sidii loo horumarin lahaa fanka Soomaaliyeed. waxaana ay ka mid tahay fanaaniin xilligan taariikhahooda la kaydiyo, maadaama Maryan Mursal ay ka mid tahay hooyooyinka fanka iyo fanaannimada. ayaa gaal iyo islaamba la isku afgartaa oo dadka ka dhaxaysa. marka inta ridmada iyo muusikada samaysa waxa waaye qolo walba oo qolada kale u tagta hore bay kala dheelaysaa oo kala ciyaaraysa. waxa la isla qabsanayaa ma aragtay, waa caadi. marka waana jecelahay in ma aragtay la isdhex galo oo dadkan la tuso inaan dad jiri jiraynahay oo wax walba yaqiinay oo iyaga xataa uga horreyn jiray inaan la tuso waa loo baahan yahay. miyay dib ku celinaysaa barisamaadkii markaad qaranka alla ahaa
adiga oo dalka dibadiisa joogo ama Shiinaha ama Afrika meel fara badan YouTube-kan kaarka dabcan adoo ka heesaya 700 barisamaadkii marka aad barnaamijkan sida kala jaad qabanayso sida oo kale ma xusuusan maya maanta taba adiga 4 beri 5 beri barooban ku jirnay markaan iyaga aan kooxda la tumayo kooxdayda Soomaali Jazz anoo la tumayo ila taa anaa 18 jir ahay mar alla markii baroowada aan soo dhameeyay yar sakaraad noqonaya meesha la iga qaadaa inta aan heesahayna waxaan isku maleeyaa 18 jir wadkaaga mahad celinaya daawashada muuqaalkan aad daawatay iyo waqtiga aad gelisay mahadsanid waxaan idin la socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Daacad ah mahadsanidin